mudane marka hore waxaad si kooban faahfaahin uga bixisaa heshiiskan ay la gashay dawladdu shirkadahan iyo waxa uu ku saabsan yahay. heshiiskani fahamkiisa ugu fiican waxa weeyaan hartu marka shaqadii wasaaradda soo waday ayuu qayb ka yahay oo ah wasaaraddu inay dadaal badan ugu jirtay in la soo celiyo ay soo laabtaan shirkadihii heshiisyadii la gashay dawladda dhexe inay ku soo laabtaan wadanka kadib hadii inta laga gaari karayo laga gaaro oo lala hadlo la yiraahdo soo laabta xirmooyinkiini soo sheegta ayuu horta heshiiskan ka mid yahay. waqtigan waxa ku soo beegay marka waxa weeyaan wasaaraddu shaqo badan bay qabatay oo waxay dhameystirtay heshiiskii khayraad wadaaga ee shidaalka iyo maamulkiisii sharciga shidaalka oo la dhameystiray xeer nidaamyaal fara badan oo la dhameystiray oo sidoo kale laga shaqeeyay hufnaan fara badan iyo shaqo badan oo la qabtay ayaa fududeysay. waxaynu ognahay in shirkadahani muddo ku dhow 30 sano ay dalka ka maqnaayeen arrimaha la xiriira amnigooda haddana waa ay soo laabteen marka ma xirmooyinkii ay horay uga howlgali jireen ama xilligii nabadda ay ka howlgali jireen ayay haddana aadayeen mise waxaa jira meelo cusub oo la siinayo? waxbay ka horeeyaan horta Soomaaliya inay hagaagtay bay tan cadeynaysaa in Soomaaliya maalgashi diyaar u tahay bay cadeynaysaa xirmooyinka ay lahaan jireen umbay hadda xirmooyinka ay lahaan jireen umbay u yimaanayaan xirmooyin cusubna inay qaataan waxay ku xirnaanaysaa hanaanka geedi socodka ee shidaalka lagu soo saaray Soomaaliya umbay qayb ka noqonayaan. laakiin waxa muhiim ah heshiiska la galay xilligii dawladda dhexe la mid ma hadda midkan gacanta ku hayn heshiis wax soo saar oo casri ah oo adduunka nooca ugu casrisan ah ayaan hadda gacanta ku haynaa. waxay aqbaleen in heshiiskii la galay xilligii dawladda oo la yiraahdo concession afka qalaad lagu yiraahdo waasna nooc heshiis oo la gali jiray marka in ay ka soo wareegaan saxiixan heshiis cusub oo la yiraahdo production sharing agreement marka ay saxiixaanna deetana waxay ka shaqeynayaan oo ka shaqagalayaan oo invest gareysanayaan oo maal gashanayaan kuwa ay leeyihiin haday kuwa cusub qaadanayaanna waa saan kugu sharxay. xilligan waxaa taagan xiisad u dhaxaysa dawladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ku saabsan xirmooyin shidaal oo dabcan la isku haysto dadkuna ay aad ugu dhagtaagayaan halka ay xaaladdu ku dambayso. heshiiskanina wuxuu ku soo beegmayaa xilligaas marka ma wax xiriir ah ka dhaxeeya heshiiskan dawladdu ay la gashay shirkadahan iyo khilaafkan xirmooyinka Soomaaliya iyo Kenya? muhiimadda horta in la fahmaa muhiim oo anagu heshiis hadda xirmooyin cusub ma nasiinay shirkadahani waa xirmooyin la saxiixay 1980 iyo xilliyadii ayada ahayd way maal gashan lahaayeen duruufta u saamixi weyday kumana yaalaan meesha hadda buuqu ka taagan yahay oo aad saa sheegtay adigu aad xustay waxay ku yaalaan aaga dhulka ka hooseeya Baraawe ilaa iyo Qaracad iyo dhulkaas bay ku leeyihiin xirmooyinka hore marka wax sal iyo raad le ma ahan waxa la isku raadin karana ma ahan waa intaas.